وصح أني قبل أحكح مركك واركي وحنغضي وحكلي وصح أني قبل أحكح مركك واركي وحنغضي وحكلي وصح مركك واركي نغضى فحفح بقرد الدمر كاي بيورنا السبي برتقال معانو لبيري باتاي الكبر واقو بيوه بوحشين عنم كبحيو بسلامي باتاي بايو رشاني سبرنا واكستو بريو حانو بحيا بارتيان يسوبرنا واكستو بريو حانو بحيا buulo farxadda ka muuqato ama sida u dhool cadeynayso ay ugu faraxsan tahay in heestan lagu ammaano iyada iyo saaxiibteeda amaantan oo ku ammaanayo fanaankan ama fanaan Sharma farxadda ka muuqato iyo dhool cadeynta ka muuqato waa mid aad iyo aad soo jiidasho leh ama mid taageerayaasha buulo ama taageerayaasha Japan ama taageerayaal ayu nooc taageerayaasha ku jira ama dhanka YouTube-ka ama dhanka Sharma Boy ha noqdaan ama dhanka ha noqdaan buulo marka taasna waxay ku cadeynaysaa inay ku faraxsantahay ama fanaankan ay u tahay taageero Sharma Boy waa fanaan daayar ama dhalinyaro waqtiyadan soo kora ama fanaaniinta waqtiyada qurux badan ku jiro oo kamid yahay waana fanaan meel walba uu tago ama meel walba uu tago shacbiyadiisa ama asxaabtiisa ama bulshada dhexgalayo yaraan iyo weynaan saqiir iyo kabiir waa isku mid marka buulo iyo asxaabteeda ama asxaabta youtuberada ku nool dhankaas iyo Puntland sida soo dhaweeyeen ama soo dhaweynta quruxda badan ay u sameeyeen sida asiga ugu faraxsan yahay ama u dhool cadeynayaan mar walba muuqaalada quruxda badan ee dhanka YouTube-ka ay ku soo gudbinayaan ama dhanka TikTok-ka ama dhanka Instagram-ka waa meelaha aad iyo aadka loogu jecel yahay dhanka social media waqtiyadan dambe ama sanadadan dambe ay dhalinyarada sanadkan jirto aad iyo aad u isticmaalayso dhankaas iyo TikTok-ka marka TikTok-na waa iska wada garanaysiin waa meel fanaanka ama heesaha challenge-yada lagu bixiyo ama muuqaalada challenge-yada lagu soo sameeyo heestii markaas soo baxdo ama fanaankii markaas heestii cusub uu soo qaado buulo waa qof lagu bartay ama dhanka YouTube-ka oo lagu bartay dhanka ruwaayadaha ama muuqaalada noocaas soo duubto waana qof aad iyo aad talent fara badan leh ama qof dhankaas iyo ruwaayadaha jilinkooda ama dhanka jilinka aad iyo aad ugu wanaagsan ama dadka ay aad iyo aad ugu barteen dhanka jilinka mar walba jili karta wax waliba oo dhanka ruwaayadii markaas oo ay dadka ka dalbadaan ama dhanka baadiyaha noqoto ama dhanka magaalnimada ha noqoto waxna aad iyo aad ugu soo bixisa ama sida aad ka arki karto ama aad ka dareemi karto buulo waxay aad ugu soo bixisa dhanka baadinimada inay jilinkeeda ay aad iyo aad ugu soo baxee marka waxaan dhihi karnaa waana youtuberad soo korayso ama youtuberad waqtigeeda ku jirto oo iyadana aad iyo aad ugu faraxsan nolosha ay ku nooshahay ama waqti xaadirkan ama dhanka YouTube-keeda ama taageerayaasheeda meesha ay gaarsiisan yihiin showgii lagu qabanayo dhankaas iyo Puntland fanaan Maslax Midaaya iyo fanaan Sharma Boy way ka qayb gashay iyada iyo YouTuber aad u fara badan baa ka qayb galeen waxayna kamid ahayd dadkii ka qayb galay oo meeshaas kala kacashay iyada iyo dad aan la soo koobi karin oo meeshaan aan lagu soo koobi karin ayayna waxay ku sameeyaan muuqaalo ama waxay ku soo duubeen vlogyo fara badan marka taasna waxaan dhihi karnaa waa showgii ugu horeeyay nolosheeda ama ay ka qayb gasho ama lagu arko ama ay kasoo muuqato waana waxaan dhihi karnaa mid aad farxad mudan ama lagu wada farxi karo ama dadka taageera ama dadka aan taageerin ay mar walba ay ku wada faraxsan yihiin horumarka ay mar walba sameynayso ama muuqaaladeeda dhanka muuqaaladeeda YouTube-ka soo gelinayso waxaan dhihi karnaa way mudan tahay in mar walba hees ammaan ah lagu ammaano ama mar walba loo qaado hees iyada ay ku faraxsan tahay ama markaas ay ku dhool cadeynayso hadii ay mar walba saan u dhool cadeynayso ay dhool cadeyntan ama farxadan ama sida u furfurnaantan ay dareemay hadii loo qaadayo hees ama mar walba hadala macaan ama eray macaan marka taasna waxay muujinaysaa qof walba iska jecel in
hadala macaan ama wax walba macaan marka taasna waxa dhigi karnaa waa waxyaabo ay kamid tahay nolosha raaxada ama nolosha macaan in ay mar walba qofka bini'aadamka ama shakhsiyad ahaantiisa oo nolol haaya ku noolaado